waxaan samayn doonaa maanta waxaan barbar dhigi doonaa mobile-kan oo Galaxy A22 waxaan samayn doonaa maanta waxaan barbar dhigi doonaa mobile-kan oo Galaxy A22 mobile-kan kale oo Galaxy A12 waxa jira runtii markay noqoto labadan mobile waxyaabo aad u fara badan oo runtii ay ka sameeyeen hanay ilaa muuqaalkan inaad dhamaysato ilaa dhamaadka si aynu u go'aamino labadan mobile ka aad iibsan doonto iyo runtii meelaha ay ku kala fiican yihiin magacaygu waa garad halka naga daawanaysana waa channelka muraso.com ugu horreyn waxaan samayn doonaa intaynaan galaggalin muuqaalka waxaan ka codsanayaa haddii sida caadiga aad ka hesho muuqaaladan ku sharaxno mobilada aan ku review garayno amba soo kale aan isku barbar dhignaba in muuqaalkan like aad saarto una sheegto asxaabtaada kale si muuqaaladaasana aan ku soo badino okay markay noqoto labadan mobile runtii sin hore u soo sheegno xajir waxyaabo aad u fara badan oo iskaga mid ka yihiin soo kale xagga jiri kala meelaha qaar inay ku kala duwanaadaan haddii hadaba ugu soo horeysino xagga design-ka labadan mobile markay noqoto runtii dhinaca design-ka aad ay isku eegyihiin labadan mobile markay noqoto runtii waxay aad iskaga mid yihiin meelo fara badan haddii ugu soo horeysino godadka mobile-kan iyo dhinacyada ku kala yaalaan haddii xagga hoose waxa isku meel ku yaala laba speaker amba laba mobile speaker kooga iyagoo leh mid hal speaker xaga soo kale aad gashan karto godka charge-ka marka noqoto charge-ka noociisa yahay type C waxa soo ka bartaan aad gashan kartaa godkii headphone-nada haddaan u nimaadno dhinaca midig waxa soo kale ku yaala volume-kii xaga soo kale laba mobile ay yihiin mobilada badanaa ku leh fingerprint marka noqoto dhinaca haddaan u nimaadno dhinaca bidixna waxa soo kale ku yaala meeshii aad gaysanaysay labada SIM card iyo sidoo kale memory-ga haddaan u nimaadno dhinaca dambe ee labadan mobile runtii marka saa u soo rogto eed gacanta ku dhigto labada mobile ba waxa runtii ku muuqan doona in xagga dambe ay aad kaga mid yihiin adigoo markaba arkaya in labadooda kameradood iyo soo kale fadhigooda ay iskugu eegyihiin xagga soo kale dhinacooda dambe uu ka samaysan yahay plastic farqiga koowaad ee labadan mobile oo karna way ku kala duwan yihiin waxa uu yahay waxa shaashada mobile-ka iyo cabirkooda caadi mobile-kan A22 waxa uu leeyahay cabir 6.4 xaga uu leeyahay mobile-ka A12 6.5 inch mobile-kan A22 ayaa markaa ka shaashad yar mobile-kan A12-ka soo kale waxaan dhihi karnaa markay noqoto display-ga labada mobile iyo maadooyinka ka samaysan way ku kala duwan yihiin mobile-kan A12 waxa uu ka samaysan maadada IPS display uu ka samaysan mobile-kan A22-gana super AMOLED display soo kale waxa jira runtii markay noqoto refresh rate-ka amba xawaaraha shaashada mobile-ka uu soo kugu qabanayo waxa ka sareeya labada mobile-ka A22 ayaa ka sareeya mobile-kan A12-ka mobile-kan wuxuu leeyahay 90 Hz oo xawaaraha refresh rate-ka halka uu leeyahay mobile-kan kale A12-kuna 60 Hz waana qodobka koowaad ee aynu dhihi karno mobile-ka A22 waan kaga doorbidi karnaa mobile-ka A12 meelaha kale ee runtii kala duwanaanshihu ka iman karo labadan mobile inuu ku jira dhinaca display-ga ayaa wuxuu yahay caadiyan si hore soo sheegnay mobile-kani waa uu ka kooban yahay haday noqoto shaashada iyo haday noqoto dhinaca dhererkaba mobile-ka A22 waa uu ka kooban yahay mobile-ka kale A12-ka hadaba waxa hore soo sheegnay video-ga qaybtiisa hore in labada mobile ay ku leeyihiin fingerprint-ka dhinaca inkastoo markay noqoto mobile-ka A12-ka aad hal gacan iskaga ku isticmaali karto laakiin mobile-kan A22 runtii koobnaanta uu ka kooban yahay iyo soo kale dhinaca culayska markay noqoto oo mobile-kan A12-ku uu ka culus yahay mobile-kan A22-ga ayaa waxay keenaysaa mobile-kan A22 inuu noqdo mid runtii ku habboon in hal gacan si fudud loogu isticmaalo haddii iminkana u nimaadno labadan mobile ee A22-ga iyo A12-ka iyo qaabka shaqooyinka ugu qaban doonaan amba dhinaca performance-gooda caadi mobile-kan A22 waxa uu ku yimaadaa processor-ka nuuciisa yahay MediaTek Helio G80 halka uu ku yimaado mobile-kan kale A12-kuna MediaTek Helio P35 caadina markay noqoto labadan mobile iyo processor-ka ay ka samaysan yihiin marka runtii loo eego labadan mobile iyo qiimaha lagu iibinayo runtii waxay ku jiraan xagga hore ay ku jiraan waxay ku jiraan processor-ka ugu fiicanba soo kale markay noqoto dhinaca RAM-ka iyo ROM-ka RAM-ka waxa maskaxda gudaha ee labada mobile caadi wuxuu ku yimaadaa mobile-ka A22 waxa ku yimaadaa maruu yahay 64GB iyo maruu yahay 160GB xaga soo kale uu ku yimaado dhinaca RAM-ka markay noqotana aad heli karto isagoo 4GB RAM ah iyo isagoo 6GB RAM leh halka soo kale markay noqoto mobile-kan A12-kuna uu ku yimaado markay noqoto dhinaca maskaxda gudaha amba ROM-ka maruu yahay 2GB iyo maruu yahay 64GB iyo maruu yahay 160GB xaga RAM-kiisa aad heli karto maruu yahay 3GB RAM 4GB RAM iyo 6GB RAM caadina waxaan kula talin lahaa haddii aad tahay qof gamer ah ama qof gameka ku ciyaara mobile-ka inaad raadsato amba aad dayato laba mobile ba marka ay leeyihiin 6GB RAM-ka
waxa soo kale runtii labada mobilba ay ka siman yihiin markay noqoto dhinaca batteriga iyo xaddigooda iyagoo labaduba leh 5000 mAh oo battery waxay soo kale ku hayn ka labada mobilba 15 ilaa 16 saacadood inta u dhaxaysa adigoo mobilkaaga si xiriir ah u isticmaalay xataa marka qaarkood ku isticmaalayaba game hadaan u nimaadno imikana dhinaca kamarada iyo labada mobil runtii labada mobilba dhinaca kamarada markay noqoto meelo badan iska mid way ka yihiin xaga soo kale meelaha qaarna ay ku kala duwan yihiin haday noqoto kamarada main kamarada runtii labada mobilba isku mid bay ka yihiin iyagoo leh aperture 48 megapixel kamarada ultra wide ka mobilka A22 wuxuu leeyahay 8 megapixel xaga mobilka A12 kuna uu leeyahay 5 megapixel kamarada makradana labadu waxay leeyihiin 2 megapixel xaga soo kale kamarada depth sensor kana labadu ay leeyihiin 2 MB soo haday noqoto dhinaca kamarada selfie da mobilka A12 waxa uu leeyahay 8 megapixel xaga mobilka A22 kuna uu leeyahay 13 megapixel oo ah kamarada selfie ga